guuleed waxaa soo baxday laba number baa soo baxday laba tiro ayaa soo baxday laba kaliya saddex xitaa maaha laba kaliya sax ma tahay waa sax okay labadaa tiro ayuu ii sheegayaa aniga markaasaan leeyahay labadaa tiro intaa waa intaa intaana waa intaa waa tahay daawadayaal kulanti wanaagsan maanta waxaa ila jooga macalin Siciid Xagaa oo alaaba arrimaha saxaafadda tababar ku bixiya laakiin maanta taa uu ka gedisan yahay oo wuxuu sameeyaa xisaabaad uu sameeyaa aniga guuleed ahaan shakhsi ahaan inta qof ee family-ga ila dhalatay ayuu xisaab ahaan ku soo saaraya bal way wada socon doonaa qaabka uu soo saarayo iyo waliba wax qaacidooyinku adeegsan doono aan ku soo dhaweynaya okay waad mahadsan tahay guuleed waa sida sheegtay xisaabtan waa xisaab iska fudud oo caadiya oo u baahan kaliya cid kastana ay sameyn karayso ma xataa wax inaga inuga eeg ma family-gaaga ma family-ka cid kasta ayay yani u sameyn kara weeyaan marka waxaan rabaa intaan xisaabtan gelin inaan marka hore sharaxo xisaabtan iyo sida ay ku imanayso xisaabtan waxay ku imanaysaa hooyo inta ay dhasho hal hooyo tusaale ahaan haddii aabbaha uu leeyahay laba reer ama saddex reer ama wixii ka badanba waxay noqonaysaa hooyo walba in gaar loo xisaabiyo ay noqon doontaa marka hadduu aabbahan oo islaantan ay u dhashay 5 taana ay 6 u dhashay taana 4 taana 3 inta la isku wada daro la isku geyn maaye mid walba gaarkeeda noqon doontaa marka waa in loo fahmaa ta koowaad ta kale xisaabta waxay ku fadhisaa aqli maskaxiin ku fadhidaa oo tusaale qaar baa ku oranaya hooyadii waxay dhashay 15 hablood iyo 10 inamood oo kale logic ma tahay haddii hooyadii 25 ma dhali kartaa hal hooyo 25 ma dhali kartaa ilaahay ma siin karaa maaha ya ilaahay ma siin karaa ma aha laakiin waxa weeyaan wax aqliga reerkan 6 bay leeyihiin qaar 4 bay leeyihiin qaar 5 bay leeyihiin qaar 8 bay leeyihiin qaar 2 bay leeyihiin qaar waxba ma leh marka xisaabta aqli bay ku fadhidaa marka taasna waa sharaxaad guud marka guuleed waxa rabtaa marka hadda adigu soo saaray family-gaaga inta kula dhalatay waalidka ku dareemay soo ka reebina iska deynay okay waxaan soo saari doonaa guuleed imisa hablood la dhalatay iyo imisa wiil xitaa hadduu madiya xitaa soo saaray oo cidna la dhalan uu doono aniga inuu qaldo xisaabta ma qalda ma maqashay waa tahay أنا كوكولاتركي واحد ديار صدي ما ديار صدي كوكولاتركي ما ديار صدي تا waxa weeyaan inta kula dhalatay صح raalli ahaada iska farxumahay inta kula dhalatan soo saaraya guuleeda waxaad samaysaa tirada wiilasha oo la soo gaabiyaan ka dhigtay taa tirada wiilasha waan gaabsaday laba ku dhufo inta aad tihiin tirada wiilasha adiga kula dhalatay ha i tusin mobilkaaga calculatorka laba ku dhufo tira ahaan intaad qabsato maskaxda ileen tusaale ahaan 3 waxaa ii sheeg tusaale 3 baa kula dhalatay 10 baa kula dhalatay 6 baa kula 4 waxaa leedahay 4 lagu dhuftay 2 haddii 4 kula dhalatay haddii 3 kula dhalatay 3 lagu dhuftay 2 hadduu hal kula dhashay adiga inta kula dhalato oo inama ah laba ku dhufo tirada wiilasha lagu dhuftay 2 markaad ku dhufato waxaad isticmaali doontaa calaamadda equal-ka isticmaali doontaa waxay la mid tahay isticmaal okay ani waxba ii sheegin de واي imika waxba anigu nink wax soo saarayaan ahay واي أنا قلبي كويس qalbiga ku hayso okay tirada wiilasha laba ma ku dhuftay tira ma ku soo baxday 3 ku dar tirada ku soo baxday aad haysato وأنا جينيا plus 3 u gee 3 ama ku dar 3 tirada wiilasha laba ku dhufo tirada soo baxday 3 okay equal dheh أوكي okay marka halkaa joogto waxaad ku dhufataa 5 waa tiradii wiilasha oo lagu dhuftay 2 oo lagu daray 3 oo lagu dhuftay 5 equal dheh واي tirada soo baxday okay loo geeyay tirada gabdhaha tg tirada gabdhaha adiga kula dhashay u gee واي ama ku dar tirada wiilasha tirada gabdhaha ku dar okay waaye guuleed waxaa u soo baxday laba number baa u soo baxday laba tiro ayaa u soo baxday laba kaliya
saddex xitaa maaha laba keliya sax ma tahay waa sax okay labadaa tiro ayuu ii sheegayaa aniga markaasaan leeyahay labadaa tiro intaa waa intaa intaana waa intaa soo yeeri maxaa kuu soo baxay 48 okay 48 ayaa kuu soo baxday soo ma jawaabtu way iska cadda okay okay jawaabtu adiga sugayso waa intaan u soo maaha ha wiilasha kula dhashay adigu waxa weeyaan waa saddex wiil weeyaan wiilasha kula dhashay gabdhaha soo maahan gabdhahana waa la hayaa way sheeg gabdhahuna waa isla egyihiin waa 3 hablood iyo 3 ilmo mid 3 wiil iyo 3 gabdhood inay saxsan tahay inay qaldan tahayna dee adaa sheegaya aniga xisaabtu waxay ii sheegaysaa intaa way haye way saxsan tahay sax ma tahay sax way tahay dee saaxiibayaalka marka way way fududahay soo maha way fududahay laakiin se qaabkii baad ku soo saartay that's a good question taasi waa ta u baahan qof walba inuu ogaado soo maha waa fududahay marka iminka maxaad siisay adigu tirada maxsuulka aad siisay waa maxay 48 tiro kasta oo laguu sheego tiro kasta soo baxdee laguu sheego waxaad ka jaraysaa 15 tiro kasta ee lagu siiye ee soo baxda maxaad ka jaraysaa halka tirada ku beegan waa wiilasha halka tirada ku beegan shanta tirada ku beeganna waa gabdhaha waa gabdhaha iminka haddaad isiiso 94 haddaad isiiso halka muxuu noqonayaa inamaduu noqonaya wiilasha marka reerkan waxay leeyihiin 8 inamood 5 ninka goysa ma halkaa looga soo qaadi doonaa dhag saas ku soo baxaysa 45 ka go 9 ayay noqon doontaa kana 8 halkan waxa ku haraya markaas 8 halka go 7 inamood iyo 9 gabdhood bay noqon doonaan xitaa hadduu numberkaa ku siiyo ani waxaan isticmaalayaa qaacidadeedu waa maxay habkan ku soo saaray 15 kaliya marka wax iska fudud tiro kasta soo baxda number kasta lagu siiyo cid kasta wax soo saar waxaad ka jaraysaa 15 halka tirada ku beegan waa wiilasha ama inamada shanta tirada ku beeganna waa gabdhaha marka saaxiibada laakiin ha ilaawina oo maskaxda ku hay qaacidadan haddaad qaacidadan ilowdo dadka qaar baa marka la tirada wiilasha laba ku dhuf markuu ku dhufto buu ku daayay marka waa inuu dhahaa equal waa inuu dhahaa waxay la mid tahay labada la isku dhufto wixii ka soo baxay maxsuulka soo baxay waa inuu mar walba qofku yiraahdaa marka adigu xusuusno tirada wiilasha laba ku dhufo 3 ku dar 5 ku dhufo tirada gabdhaha ku dar tirada soo baxday 15 ka go halka waa wiilasha 5 waa gabdhaha way macna si xaga wad mahadsantahay horta mar labaad laakiin qaacidooyinkan aad adeegsanaysid ma wax iskuul lagu dhigtay mise waxa aad ikhtiraacday sidaad iskuul lagu ma dhigto waxa wax iskuul lagu dhigtay ma oo macalinka xisaabta ku dhigaya ku dhihi maayo waxana sidaan laakiin waxaan waa wax la farsameeyay caalamka oo dhan way ka jirtaa adduunka oo dhan oo inaga hadda afrikaanta aynu nahay xitaa wadamo badan ayaa qaabab ka duwan u soo bandhiga aniga hadda ka hor mid xitaa soo bandhigay waxa ku jirta waalidka lagu darayo marka 3 tira soo bixi doonta 150 baa laga jaray waa tahay marka waxa waa wax qof uu sameeyo oo la isku dadayo oo falbu sameyn karo waa easy weeyaan nambarada la isticmaalo kaliya waa 3 nambar bis 2 3 5 labada marka la isku geeyo 5 bay noqdeen waa tahay marka waa nambarada kaliya marna ku dhufa marna ku dar ah marka waa wax iska normal wax iskuul lagu dhigto maaha waayo waxyaabo kale marka laga yimaado imka waa soo saartay family-geyga kale imka waxyaabo kale ma jiraan numberkaaga waa way jiraan waxyaabo kale way badan yihiin ha numberkaaga telefoonka la soo saari karaa oo adoo u sheegan qofka qaacida uu raacayo ayaa jirta iyo dhowr nooc waliba hal qayb kaliya maaha qaabab kala duwan ayaa jirta waxa kale jiri karta inta number anigu sii jeesto kale saa u sii jeesto
inta number ku qorato saddex number afar number qorato afarta number mid kamid aan ku sheegi karo ku dhigi karo ka marka laga reebo numberkaas waa ka anon eegin ayaan hore ka sheegaya waxa soo dhan waa wax la bartay waa sida sheeg iskuul lagu ma dhigo waxan waxa isku day badan iyo farsamooyin badan la sameeyo waxa kale oo jirta bishii aad dhalatay iyo maalintii ay ahayd salahan anigu waxaan dhashay 20 October oo kale October bishii 10aad Soomaa bishii aan dhashay bishii 10aad waxaan ku sheegi karaa bishii aad dhalatay iyo maalinta tirada inta ay ahayd ayaan ku sheegi karaa yani waxa soo dhan waa wax la barto oo qofku haduu raadiyo uu heli karo uu baran karo iskana fudud laakiin aniga iskuulku ma dhigo way macallin saxiixa dadku waxay ku yaqaanaan badankoodaba tababarada saxaafadda iyo waxa goormaad arimaan xisaabaadka iyo waxa bilowday wallahi guulidu intaan yaraa xitaa markaan fasalka lixaad ee dugsiga dhexe xitaa xisaabta waagaas ayaan aad jaceylkeeda u xiiseyn jiray oo bilaabay tan kale aabahay wuxuu Allah naxariistay wuxuu ahaa engineer dhinaca trigonometry-ga yani qofka cabiraada yani xisaab buu ahaa oo yani wax la sugeeyo tir la sugeeyo dhulkan muxuu noqonayaa cabirkan inta muxuu waxa ka wahiridii la oran karaa wallahi xaga marka la eegana xaga aabo maadaama uu isaga engineer dhinaca xisaabaadka ahaa engineernimo gaar uma baran laakiin anna hobby bay iga ahayd يعني أنا أتوجع حسابتي إن أنا واحد بدن كبرته مرة كقار حتى حسابات كقاركود وحلو قصة صارا هو إذا مويل بكعرتي مسجات أي كعرت مركزات كقار با كل هذا يا حق ما ركت حن معقول هنا وأركيا وح يعني وأنك سنين مركز ما دام ضد الإسلام نهاي وحيلا قار ونكحش وضع وعقيدتي يو إسلام نمدي يو رقم كأني أيديدية marka taana way jirtaa waxaan ku soo koobaya waa wada barasho waa wax qofku u baran karo fududna aad u fudud waliba waayahay kaasi wuxuu ahaa macallin Saciid Xagaa tan iyo kulantii dambe waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh